والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وزيرka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada, wasiir ku-xigeenada wasaaradaha dhalinyarada, isboortiga iyo haweenka, xildhibaanada, mas'uuliyiinta kala duwan, madaxda iyo maamulka hay'adda Yardameeli, hay'adda Manhal, agaasinka iyo maamulka isbitaalka Yardameeli, dhammaan mas'uuliyiinta kala duwan halkan joogta, haweenka halkan jooga ee barnaamijkan ka faa'iidaystay. qof kasta waxaan ku salaamayaa mansabka iyo maamuus uu halkan ku fadhiyo. waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib runtii farxad ayay ii tahay maanta inaan kasoo qayb gala barnaamijkan oo aan u baahnayn fasir badan in la saaro. waxaan rabaa inaan ugu hambaliyeeyo isbitaalka Yardameeli dadaalkan bilowga ah ee uu sameeyey. waxaa jira haween badan oo xilliga ay uurka leeyihiin aan awoodi karin inay isbitaallada tagaan, inay baaritaano helaan, oo runtii culays badan uu ka jiro dalkeenna. marka in la sameeyo haweenka ayaga uurle lala socdo, daawo loo sameeyo, baarid loo sameeyo, waa barnaamij cusub oo runtii aan horey u dhicin. guryaha lagu booqdo, loo tago. marka waxaan leeyahay Yardameeli dhammaan agaasinkiisa waa mahadsantihiin iyo dhakhaatiirtiisa, ilaahay ajraada ka siiyo. waxaan rajaynayaa barnaamijkan in la ballaariyo, annagana waxaan diyaar unahay insha allah inaan gacan ka geysano haddii aan la yidhahdo. midda labaad waxaan rabaa inuu mahad celiyo agaasimaha guud ee Yardameeli, Dr. Saadiq, macnaha aragtidan iyo in isbitaalkan la dhiso keeneen aaday u mahadsan yihiin. waxaan leenahay jazaakumullahu khayran. waxaan la soconaa isbitaalkan inuu jiray qorshe in lagu ballaariyo ah oo hadda ku hor la dhagax dhigay laakiin aan fulin. waxaan ka codsanaynaa wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo madaxda kale ee dowladda in mashruucaas inuu hirgalo gacan laga geysto. isbitaalkan in la ballaariyo aaday muhiim u tahay. baahiyaa loo qabaa, baahidiis way taagan tahay. marka wasiirka wasaaradda caafimaadka Dr. Cali Xaaji, insha allah waxaan rajaynayaa isbitaalkaas qaybtiisa labaad dhagax dhigo hore u socdo inaad arrintaas aad riixdid. guddiga dagaalka arrimahaas u baahan sidaba aad aan ula socona waa baahsan tahay. marka Dr. Saadiq iyo tiimka iyo Yardameeli waxaan leenahay jazaakumullahu khayran, iyo Manhal iyo isbitaalka intaba. barnaamijkan asaga ahna inuu sii socdo oo sii ballaarto, annagana inaan gacan ka geysano diyaar una insha allah. waa mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullah.